هذا الشيء كدوان ملاها سياسة داس سبورتس كاس دجال داس يصيدوا كله الرميه كله نظافة الحيرة جوركم ملاها قفل بوا وجرن كره أهمية دي سفايدة دي وحتر كيسة يصيدوا كله طبعا وحى وكده جاني هاي مركز آذن جورسن يقول كأذ نلاش جور كجشوا فرق وين يا أود حياة ملاها هذا بدنا يانا تشرو وحبذا كجرنا يا guurku waxa la yiri waa hadafka ugu weyn ee uu gaaro qofka marka uu dhalinyarada yahay in kastoo marka qofka uu gabo xitaa uu guursan karo qaar kamid ah shacabka ku nool dowlad deegaanka Soomaalida ayaa guurka dabcan waxa lagu soo waramayaa inay ku xireen lacag fara badan gaar ahaan meherka ka hor haddaba waxaa jira walwal weyn oo laga qabo sicirka meherka oo kor u kacay bilihii u dambeeyay kororka qiimaha guurka oo qaaliyoobay ayaa ah mid ku cusub bulshada degan dowlad deegaanka ismaamulka ma lahayn guurka xilliyadii hore lacago hormaris ah oo meherka ka horeeya laakiin kaliya waxa uu ahaa mid geel loo fariisto laakiin waayahan dambe qaabka ayaa lagu soo waramay inuu isbedelay waana sahab lacaga cadaan ah ama cash oo madashaas la geeyo haddaba dhalinyaro badan ayaa ka baaqsatay guurka sababtuna waxay tahay xaddiga dhaqaalahaas lagu xujeeyay oo jeebkooda aan ku jirin axmed nagaasho wariyaha RTN aan raahday axmed najaha أحمد إبراهيم نجاشي والله waxaan moodayna magaca kale ku qalday oo jooga jijiga ayaa inoo soo waramay guurku waa hadafka ugu weyn ee uu gaaro qofka markuu dhalinyaro yahay sidoo kale diinteena macaan islaamka waxa inta badan dhiirigelisaa guurka bariga hore Soomaalida guurku uu ku adkaay oo qofku si dhib ah kuma uusan guursan jirin sababtoo ah iyadoo ninka marka uu doonayo inuu guursado laga qaadan jiray xoolo badan oo isku jira geel iyo qoriba oo laga yaabo in laga qaado ku dhawaad 100 neef oo geel ah balse ma lahayn guurka xilligaas lacaga hormaris ah oo meherka ka horeeya kaliya waxa uu ahaa mid gid fariisi ah laakiin waayahan dambe qaabka uu iska bedelay oo lacaga cadaan ah ayaa aad loogu isticmaalaa arimaha bulshada dhexdeeda dhinaca kale qarnigan waa mid ka duwan sanadadii hore haday noqoto meherka Suuriyada iyo aqalgalkaba waxaana jira walwal weyn oo laga qabo sicirka meherka oo kor u kacay bilihii u dambeeyay kororka qiimaha guurka oo qaliyoobay ayaa ah mid ku cusub bulshada degan dowlad deegaanka Soomaalida dhalinyaro badan ayaa ka baqsatay ama ka daahay guurka sababtuna ay tahay dhaqaalaha badan ee guurka lagu xiray markasta uu si kordho qiimaha meherka ayay gabdhaha u arkaan gabadha la guursanayo inay qoyskooda sharaf weyn u yeeshay waxayna muujinaysaa taasi qiimaha sare inay leedahay haweenka la guursanayo haddaba bulshada ku dhaqan xarunta deegaanka ayaan wax ka weydiinay sarakaca ku yimid bilihii u dambeeyay qiimaha guurka ayagoona sheegay in bulshada ay door weyn ay ku leedahay qiimahan sare u kacay dhinaca kale waxa ay tibaaxeen in labada qof ee isdoortay qiimaha sidoo kale ay door ku leeyihiin waa sarakaca guurka mar walba ka islaam ahaan iyo shariic ahaan markii la yiraahdo guurku wuxuu leeyahay dawaabid buu leeyahay wax buu leeyahay xadida ama waxyaabo qawaacid buu leeyahay jaantus buu leeyahay kuma jirto marka waxyaabaha adayga marnaba kuma jiro islaamku marka uu dhiirigeliyay guurka markuu dhiirigelinayo guurka waxa uu hadana barbar socdo in mar walba in laga fogaado waxa la wixii carqalad ku ah adkaynaya in laga fogaado waxaynu u kala qaadaynaa marka guurka waxyaabaha imika adkaynaya dhowr qaybood baynu u kala qaadaynaa dhowrka qaybood mid waxa weeye waa meherka midna waxa weeye waxa aan meherkii ahayn oo meherkiiba ka horeeya oo ama gabaatiga ha ahaado ama wax horumarin la yiraahdo ha ahaato waxyaabahaas oo barigii hore aan markii hore jiri jirin oo inaga inoo ahayn dhaqan inta badan inoo ahayn ayaa imika jira waxyaabaha hadda noogu dhib badan ee mashaakilka jira waxa weeye qoysaskii inay isqabsadaan oo markay isqabsadaan ay noqoto wixii horay loo isticmaalay inay noqoto arrintaasi marka waa arrin aad iyo aad dhibkeeda la weeye sixir bararka haddii aan ka hadalno waxaa jira sixir barar aad u baahsan oo bulshada dhammaanteedba saameeyey kolley waxay ku xidhan tahay waa
waalidka ayaa looga baahan yahay inay fududeeyaan guurka waayo imika hadda waqtigan aan joogno waxa aad iyo aad maxay hayday u badatay waa macsiyada taasna waxa keenaysa waa guurkii oo qaaliyoobay maanta dee dhalinyarta inteeda u badan wax lacag liima jiro maanta nin dhalinyara oo lacag inta leeg oo maxay hayday lacagta xataa uu ku guursanaya ee kharashka kaga baxaysa guurkiisa waa mid isaga ka weyn mana goyn karo xataa haddii u baahato sariir baa ugu yaroo qiimaheedu waan garan karnaa maanta inta ay tahay marka saas darteed waxa fiican inay dadku ay magac isu guursan iyo heblayntaasaa laga bixiyey alaabta noocaasa loo dhigay laakiin mustaqbalka kamaalin berri toolaha dhow in aynu u eegno oo dadku sidii wanaagsanaa ee hore ee awalba isu guursan jirnay isu guursado iyadoon khalash iyo dhaqaale iyo midna magac toona la eegay والله دور محو هاي قف والبوا تبرتي سمقرنسا marka horta aad buu u xuntahay sarakacani waa dad badan oo iskuursan laha ayaana de awooday oo gabadha xoranaysa sida heblayo kala la sameeyay hadaan sameeyay de ma rabo marka wallahi doorku waxa weeyaan aad buu adag yahay laakiin waxaan jeclaan lahaa in muxuu waalidka ay dhimaan muxuu ahay bulshaduna gaar ahaan habluhuna ay ragada la saayiraan inkasta wax kasta qofku jecel wax qurux badan meel qurux badan hadana waa in qofkan uu jecel yahay xaaladdu ku sugan yahay inuu u faa'iideyn muxuu ahay inuu de waayuhu la simay iyo in kale haddaan ka hadlo mataqaanay guurka baryahan dambe aad buu u qaaliyoobay marka waxaan odhan lahayn odayaasha iyo dhalinyarada inta la isku keeno mataqaanay laga howlgalo sidii guurka loo jabin lahaa saasaan odhan lahaa gabadhii waxay arkaysaa gabadh shalay qaabkaas oo kale loo soo doonay ayay arkaysaa marka iyadii waa inay tiraahdo de gabadhii wixii in hebel laga bixiyay ee horumarka ah hala sameeyo taas baa marka keenaysa marka mar walba bulshadii ayaa waxan yaa iska leh oo gabadhii iyo wiilkii midna haddii iyaga loo fududayn lahaa mayna doorteen in hawlahan lala yimaado mayna doorteen iyagu gabdhahana waxa weeyaan mushkilada ugu badan inayna aqbalin iyaguna inay aqbaleen baa iyaguna musiibo ah ama mushkilo ah waxyaabo aad u liito oo iyaga laftooda ku ah dilan ku ah gabadhii in xoolo laga bixbixiyo waxay keenaysaa de in ay tahay ruux wax la yar gadanayo oo alaab la gadanayo inay tahay bay gabadhii ay noqonaysaa gabdhihii way aqbaleen marka sharaf bay moodeen in la gato oo xoolo laga bixbixiyey iyo waxyaabahaas sharaf bay moodeen gabdhihii marka gabadha waxaa sharaf ah in loo eego ninka soo guursanaya soo doonaya in loo eego ayaa gabadha sharaf u ah مثلا waxa keeni kara nacamay guurka waxa weeyaan de hooyooyinka kala gedgedisan ee kala nooc ayaa keeni karta marka waxa weeyaan hooyooyin waxay rabtaa inay gabdhaheedu asturnaadaan ay reer yeeshaan hooyooyin kale magac bay rabtaa ayaa laga sii sheego yani inanteeda intaas laga keenay intaas oo milyan baa laga keenay intaas oo 100,000 baa laga keenay iyo hooyooyinka qaarkood ku farxaan haddaan sida ila tahay hooyooyinku inay ku farxaan weeyaan inanteedu reer yeelata ay ku farxaan way gabadhu sida iyadu reer soo yeelatay hooyo u noqotay iyaduna hooyo u noqoto ayaa ila fiican aniga hadda dhibaato waxay keenaysaa gabadha in hebel waxa laga keenay inta islaanta kalena iyadoo hagaagsan waxay oranaysaa gabadha ama gabadhaas gabadheeda ka liidata gabadheedana waa inta laga keenay in ka badan waa in laga keeno marka hooyooyinku isku dayasho iyo yeelanayaan ay ها قيب بكل هنا وح لقى يا قبضو إن ترى وح كان أي مثلا ويلكيون أودين بجورك أما دقاليس وهاسيا وما أنت تسوق المشبي كوف فكرة والد كيسي سدوا حقوق قبلها إن يدنا ترى وحنو بهنا دقالها إذا كان وحصلوا بهنا هاي يسوون مثلا أود ومركو دقالي ويايو إن يكون كلفتين وقبضين تولى بحصله مثلا أيو حمان أما وحكلا عينيش تماتو bulshada laftigeeda wallahi bulshada laftigeeda door weyn ba ku leedahay oo gabadha imika maanta walaasheed de lacag aad badan laga bixiyo laguna meheriyo dahab aad u qaali oo tiro badan de bari ka maalinayaduna waxay ku fikiraysaa in ay ka sii badiso mooyaan in ay ka yarayso laftigeeda kuma fikirayso iyada kale waxa dhici kartaba in hadhow toolo gabdhaha qaar ay ku caayaan ama adigoo dhabankan leh oo quruxdan leh ayaaba ma aha nin ayron iska ka kaxayso iska raacay in ay bulshada laftigeeda ay gabadhi ku booriyaan balqay marka bulshada laftigeeda ayaaba saameynta u balaaran kula iyagu oo qaban qaabinayo abaabulaya
wallahi qaaliga wax ka dhilan kara macsi ba ka dhilan karta waayo muxuu ahay dadkii markuu awoodi waayo qof ninkii inuu guursado inuu macsi sameeyo ama gabadhiina muxuu ahay ayaa ka iman karta marka waxaan kula talin lahaa in guurka la jabiyo walow anigu fikir ahaan markan eego xagga diiniyan waxa fiican in la jabiyo laakiin haddaan dumarnahay waxa qaaligan iska jecelnahay in lacag qaaliya laga keeno guri qaaliya la sameeyo alaab qaaliya la dhigo waan jecelahay laakiin diiniyan markaan qof diin bartay baan ahay diiniyan waxa fiican waxa jaban oo waayo waxa macsidii baa meesha ka baxaysa dumarkana waxaan kula talin lahaa diinta fiican qaybta diinta in loo raaco dhalinyaradii ay guursan weydo waxaa dhacaya markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fitan baa dhacaysa guurka markaa iminka haddii la adkeeyo oo uu adkaaday guurkii waxaa dhacday in ay dhaceen zina ay dhacayso oo la zinaysanayo waxaa dhacaysa in uu meherxad jirayo oo labadii qof markii ay wixii ay rabeen awooddoodii markii laga badiyo 100,000 la yidhaahdo waa horumarin 100 la yidhaahdo 30,000 ama 50,000 waa gabaati la yidhaahdo waxay noqonaysaa markaa inayna dadkii ayna wax guura ayna samayn waxaa loo yareyn karayaa iyadoo mataqaanaa culimadeena iyo odayaal dhaqameedkeena inta la isku yimaado la fahansiiyo mataqaanaa waalidkii haddii mataqaanaa la yareyn kari waayo waxaa iman kartaa xanuuno badan baa iman karaya in mataqaanaa xanuuno hadda ka hor aan jirin yimaado xalku wuxuu noqon karaa inay dadka waxgaradkii inay tashadaan